Assalaamu calaykum. TikTok iyo faahfaahintiisa maxaa laga wadaa? Horta magaca TikTok maxaa laga soo gaabiyey? TikTok waa meel laisku maaweeliyo oo farxad lagu siiyo. Laakiin TikTok waxay noqotay meel qashin ah, gudaafada ka daran. Waayo maxaa gabdhihii haleeyeen. TikTok maanta heer wuxuu maraa nin iyo xaaskiisa inay fursad isku heleen. Xaaska ninkeed inay fursad u heleen. Waayo kaliya waxaa la isku soo jeestaa marka qofka kale oo wax uu tusaayo. Taasna runtii mid aqal noqonaysa maaha. TikTok wuxuu maanta si zaid u haleeyay reeraha guryaha, dadka isqabo, dadka farxadda maanta laga rabo inay ogaadaan. Laakiin haddii qof kasta oo jeesto social media ku jeesto oo marka kaliya oo wax la istusaayo la isku soo jeesto, horta dad xal ma noqonayso. Meeshaas jacayl buu ka ogaanayo. Laakiin badaan dadka waxay isku dhiibeen TikTok. TikTok runtii meel fiican ma aha. Qof kasta maanta oo ku nool reerkan wuxuu ku jiraa caalam kaleete. Sawir in la iska qaado, social media afar sac inaan ugu jirnaado. Familka dhan maanta waxay faraxsan yihiin social media. Indhaha kaliya maanta waxay noqdeen social media. Qofka da'da maanta wuxuu farxad u arkaa social media. Runtii taasna waxay ka mid tahay doqonnimada. Waayo social media wuxuu kaa dhumayaa fursadaada, shaqadaada, ciyaalkaada. Macnaha farxad isku helaysid. Waayo meel aad iyo aad u farxun. Qofka wuxuu farxad u arkaa maalintii dhan inuu social media gidgidiyo, TikTok, YouTube, wax aan ku xariirsan inuu gidgidiyo. Waayo shaqadii dhan qofka waa ka soo jeesanaya. Waayo maxaa keenay isticmaalka badan telefoonka. Caruurta yar maanta waxay si zaid ugu faraxsan yihiin social media. Social media waxay u arkaan midka noloshooda farxadan oo siinaya. Runtii waa midka noloshooda burburinaya social media. Shaqadeena maanta halkaan ayay u kayd. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Subscribe-ka ay iloobin, like, comment-ina ka soo bixiya sida soo badana muuqaalka fiican. Okay.